duhur wanaagsan daawadayaal. Qaxootigii ugu horreeyay ka soo barakacay bariga dalka Ukraine ayaa soo gaaray dalka Ruushka. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Donetsk ee loo aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah Ukraine uu ku dhawaaqay dadkiisa inuu u daadgurayn doono dalka Ruushka. Shirka nabadgelyada oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu wiigag badan ka digayay haddii aan sida loo dhaamin xaaladda Ukraine in ay ka sii dari doonto. Waxa uu sheegay hadda inay qarka u saaran tahay isku dhac toos oo labada dal ka dhaxeeya, waxaana uu yiri haddii ay taas u dhacdo khasaaruhu waxa noqonayaa mid aad iyo aad u badan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dhigiisa dalka Jarmalka oo mar labaad shirka iyagoo ka qayb galaya su'aalo la weydiiyay, waxa uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku in Ruushku uu weli haysto jaanis uu ku yimaado miiska wadahadalka, waana in uu kala noqdaa ciidamadiisa. Duqa magaalada Kiev Vladimir Klitschko oo ahaa feeryahankii hore caanka ahaa ayaa waxa uu weydiistay dalkooda inay difaaci doonaan waase haddii ay caawiyaan dalalkan reer galbeedku. Waxaa hadalkiisu ku socday dalka Jarmalka oo aan isagu wax xuba siin dalka Ukraine. Haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ka ah dalka Jarmalka oo ka jawaabaysay hadalka duqa magaalada iyo xiddiga caanka ah waxay sheegtay wixii ka dambeeyay dagaalweynihii labaad ee adduunka Jarmalku inuu go'aansaday inaanu hubab dal isugu dhiibin, taas oo ahayd cunaqabatayn hore loo saaray inaanu dagaalweyne saddexaad adduunka ka horin lagana ogolaan doonin. Jarmalku waa dowladda kaliya oo NATO ka tirsan oo aan weli taakula hubeed u ballan qaadin siina dalka Ukraine. Daawade, fadlan subscribe saar kanaalka, gambaleelkana furo si ay kuugu soo dhacaan hadba wixii ka soo cusboonaada xaaladdan cakiran ee Ukraine.